واي stages كهذا job analysis كمرة marka doonaya inaan shaqo soo qiimeeyo ama soo observe gareeyo ama interview soo sameeyo ama aan questionnaire sameeyo habeen ku guurayn maayo ma oranayo intaan iska soo tooso waxa weeye buug cad intaan qaato oran maayo waxaan macnaha waxaan doonayaa inaan dadkii qiimeyn isku mid ah qiimeeyo waxaan doonaynaa human resource markaynu ka hadlayno waxaynu waa inay yihiin wax formal ah oo la isla garanayo marka sidan wuxuu interview garanayay sidan wuxuu analyze garanayay waa inay ii qorshaysan waa inaan wax isku mid ah dadka weydiinayo isku midka ah haddaan maamulayaasha laamaha doonaya xaaladooda si ay u shaqeeyaan iyo culayska haystii inaan soo qiimeeyo on midna bari ka wareysto midna galbeed ka wareysto miyay isku shaqo noqonayaan midna aan idhaahdo maxaa la idhaahdaa imse saacadood baad maalintii shaqaysaa maxaa la idhahdaa maxaad qabataa ka kalena aan ilaa maskaxdayda wax walba ii hayn maysa intaan u tago aan idhaahdo shaqaalada haystaa waa imsa isagana aan uga bilaabo miyay isku qiyaas noqonaysaa isku qiyaas ma noqonayso marka waxa weeye midna waxaan ka wareystay xaggan aan ka wareystay midna xaggan aan ka wareystay marka doonaya inaan job analysis sameeyo waa inaan waxa ugu horeeyaan qabanaya waa inaan balaan gareeyo job analysis sidan ujeedada horta laga leeyahay maxaan doonaya horta marka horse waa inaan garanayo maxaan job analysis kan u sameynaya maxaan u sameynayaa inaan ogaado tusaale ahaan maamulayaasha culayska saaran waa ujeedo noqon karta waxaan doonayaa inaan u sameeyo inaan qiimeeyo tusaale ahaan dadka aqoontooda dadka shaqooyinkan ka shaqeeya inaan aqoontooda soo ogaado whatever objective-ku ha noqdo laakiin analysis-kaygu waa inuu ujeedo leeyahay laba waa inaan maamulka sare ka xaqiijiyo oo ay ila aqbalaan haddaan la guureeyo oo dabeedna dib ula soo guureeyo la yidhahdo waxaad wadaba waxba kama jiraan dee resource-na waan isticmaalay waqtina wuu lumay hawlna waan soo qabtay anigana niyad jab baa hadhowtay ku dhacaya waxaan layla ogeyn markaan sameeyo deedna haddana hadhowtay ku murmo uun miyadaan xilka ii magacaabin miyaan xilligan doono tegayn daa inaad nala tashataa miyaan shaqada ku jirin baad ka hor taalla deedna meelaad ka baxdaa ma jirto inaad wax naga weydiisaa miyaanay ku jirin markaan planninga sameynaya markaan leenahay waxaa soo qiimeynaya dadka aqoontooda haddaan maamulkuba rabin in aqoon waxaa laga hadlo miyay soconaysaa walba hada aqoontooda aniga kuma naan dirine la xisaabtan una farta inay meeshii saareen noo eg halkii farta saareen noo eg adeer aqoontooda waxba kaama geline qof waliba reerkooda wax soo baray marka haddii mentality halkaa joogo adiguna aad caalam kale marayso waa tii aad ka hadlayso contextkii waxa isjiiraya maxay iyo human resource-kaagi ayaa iska hor imanaya dabeedna marka dambe waa inaad iscasisho mar haddaan waxaan shaqaynayay haade saleska igu celiya aniga ama igu celiya maxaa la dhahaa ama waan iska tegayaa inay noqoto marka macnaheedu waxa weeye analysis-ka waa inay balaan leeyihiin laba marka aad ujeeddada garato maamulkana ka soo approve garayso dee dad baad waxaan weydiinaysaa u diraysaa soo maha miyaad ku guuraynaysaa qofka marka doonayso inaad analysis ku samayso waxaad ka analyze garaynayso iyo waxaad ka doonayso waa inaad waddadaad marayso u sheegto waa inaad wixii hore jiray weydiiso waa inaad processka kula xidhiidho dadka iyo maamulayaasha u sheegto tiraahdo qorshahaasaan wadnaa waxaanu qiimeynaynaa aqoontiina waxaasaan samaynaynaa deedna iyagoo ogoo diyaara inaad u tagto laakiin qofkii alaabta sida haddaad tiraahdo ka waran aqoontaada horta alaabtaan dhigu ku oranaya dee soo saa maaha dee marka macnaheedu waxa weeye uma diyaar garoobin manaad qorshaynin kumanaad talagelin laakiin marka la yidhaahdo saacadda soo socota waxay noo imanaya qolo waxay nagala hadlaysaa dee qofkii oo diyaar ahoo wuxuu doonayay wuxuu diidayaba garanaya wixii laga hadlayayna garanaya mar walbana waxaynu u socnaa waxa weeye waxaynu isla garanayno mar walba waxaynu ka cararaynaa waxaynu la guuraynayno marka noloshu sax kuma aha haddaan doonayna wax isla fahmno haddaan doonayna waxaynu hagaagaan haddaan doonayna nidaamka iyo maamulka iyo sidaynu u shaqaynaba ay hagaagto waa in dadka waxaynu kala hadlayno iyo waxaynu qabanayna aynu ognahay xataa processkaynu marinayno waynu qofku ogyahay waynu qofku ogyahay talaabada saddexaad waxa weeye waa inaan shaqadii qabto marka maamulkii baan ka soo approve gareeyay waxaan doonayaan garanayaa maxaa la yidhaahdaa allahuma salli calaa maxamed waa isla garanay waddadii la marinayaan gartay wixii hore jiray baan soo eegay maxaa la yidhaahdaa waxaan sameeyey waxaan u sheegay dadkii baan ogeysiiyey waxa la samaynayo kadibna waxa dhacay waxa la yidhaahdo waa inaan shaqadii qabto marka shaqada de markaan qabanaya de waa inaan xogtii ururiyadde dadkii interviewgii ka qaado waa inaan qolo maxaa la yidhaahdaa observe gareeyo eego waa inaan qolo questionnaire u diro dabadeedna waa inaan soo review gareeyo wixii aan qabanayay dabadeedna isu geeyo dabadeedna aan xog ka soo saarantay report waa inuu ka soo baxo waa inaan report soo compile gareeyo ayaa ku xigta
waxa ku xiga waxa la yiraahdo stage-ka afraad waa waxa la yiraahdo maadaama qiimayntii dhamaatay maxaynu samaynaynaa the job description waa markaa qormaya hadday bilow tahay haddii kalena xagga dambe kordhana waa la review garaynaya waa wax lagu samaynayaa recommendations iyo change marka draft job descriptions and specifications shaqooyinka cusub ee soo baxaa la qorayaa kuwii wax laga bedelaa dib loo qorayaa kuwii wax lagu kordhinayaa la hagaajinayaa waxa ku xiga review drafts with managers and employees markaad soo diyaariso waa in shaqaalahana la tuso maamulkana la tuso labaduba waa inay soo review gareeyaan ay eegaan waayo waxaynu ku heshiinayna soo maha waxaan doonayna inaan ku wada shaqeyno soo maha haddaanan ogeyn ka war haddaanan ogeynba wax la igu qiimeynaya iyo waxaan ku shaqeynaya iyo hawlaha lay diray iyo haddaanan ogeyn ilaaha annaga kuwaga socdo deedna marka dambe aad tiraahdo hawl qaban weyda lagu yidhaahdo waa lagu ganaaxayaa hawlahaasaa dayacday oo meedii sheegtay baad ku xigtay ma way qoran tahay buugay ku taala dee buugga hadday ku taala aniga buugga meedii dhiibtay maamulkaa saxeexay dee hay maamulkaa saxeexay maamulka shaqada buu qabanayne anigaa qabanaya marka doodda waxa weeye waa in qofku uu ogaado laba waa in dadka la ogeysiiyo dabeedna wixii ay soo recommend gareeyaan ee sax ah ee u baahan in lagu daro waa in lagu daro dabeedna waa in lagu daro oo dib loo dhiso qodobka shanaad waxa weeye wixii hore jiray markaa waa in updation lagu sameeyo oo in maaragtay la sameeyo waxa la yidhaahdo job description iyo specificationkii wax laga bedelo dabadeedna mar walbana qaybta u dambeysa waxa weeye in joogto loo wado in waxaan lagu sameeyo waxa la yidhaahdo review